بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaad madbaxa Muna weligaa isku dayday cinnamon tea anigu cinnamonka qorofalka aad baan u jeclahay oo weli waxaan ku jeclahay bakeryga roodhida iyo marka lagu dardaro cinnamon rolls iyo waxyaabaha la mid ah oo channelkeena ku jira hadda doonaysiin inaad samaysiin marka maanta waxaan sameynaynaa cinnamon tea qorofalku faa'iidooyin badan buu leeyahay dhiiguu controlaa blood sugarka energy uu ku siinayaa baruurta calooshan uu kaa ridayaa sonkorna ma laha shaahani marka insha Allah waxaad ku bedeli kartaa shaaha طبعا cinnamon ama qorofal kaliya kaama ridayo baruurta waa inaad jimicsataa waa inaad cunto fiican cuntaa oo nafaqo leh macmacaankana iska yareysaa iyo waxyaabaha la mid ah hadaad doontid qorofalka isagoo qoriga ah ayaa keliya isticmaali kartaa isagoo budo ana waa isticmaali kartaa keligii anigu maanta labadaba waan isku darayaa koob aan soo qiyaastay oo insha Allah aan cabayo ayaan ku shubtay digsigan waxaan ku darayaa cinnamon sticks marka midna waa budo qorofalka midna waa qoryahaas aad arkaysiin udgoonna weeye marka lagu sameeyo bakeryga roodhida iyo waxaas lagu sameeyo anu aad baan u jeclahay cinnamonka isagoo budo ana waa kan haddaad jeclayn qorofalkaas qoryaha waxaad ku dari kartaa keliya isagoo budo ah anu laakiin labadaba waan isku darayaa shaahana wuxuu ku bedelayaa shaaha Soomaaliga inaan cabno sonkor badan baa ku jirta anigu aad u jeclahay marka heel iyo qorofal iyo waxaas dhan lagu daro sinjibiil yar markuu soo karkaro digsigu dabka ka yara gaabiya marka 5 minute ha karo waxaad ku daraysaa 1/4 of malqacad barkeed kasii yar oo ah qorofalkii budada ah ku daraysaa shaahu waa diyaar wax weyn kaama rabo saasuu ku diyaar yahay markaad ka qaadidna waad miiraysaa ama waad shandaynaysaa insha Allah isku daya inaad cabtiin week oo kale exercise-na socod samaysiin haddaad kari kartiin orodiin baaskiil soo wadiin insha Allah qofkii doonaya inuu caloosha iska rido weliba dumarka hooyooyinka caruuro badan dhalay xataa markaas aad buu fiican yahay cinnamonkan sonkorna ma laha mar labaad baan ku celinayaa waxaan ku daraynaa malab dhakhtarka waxay badanaa yidhaahdaan malqacad ka badan cinnamonka maalintii ka badan qofku inuu cuno ma aha marka insha Allah wax kasta aad cunaysiin wax kasta aad isku dayaysiin dabcan waa inaad ogaatiin adiga munaasib ma ku yahay adiga ma kuu fiican yahay ma kuu qalmaa dhib ma kuu keenayaa marka wax kasta ood aragtiin inaad yaro baadhin ba wanaagsan laakiin caafimaad ahaan tani way fiican tahay cinnamonka qorofalka malqacad malab saafiyaan ku daray sidiisa xataa waa ku cabi kartaa laakiin in yar buu yara qaraar yahay insha Allah isku daya nooc kalena haddaad aragtiin ii soo sheega insha Allah barakallahu fiikum bismillah ha ilaawinina subscribe share and like